shirku uu soo gabagaboobay saacadahan haddana idila hadlayo wax yar ka hor shirka oo bilaabmay madaxdu yimaadeen kowdii bisha Isniintii salaasadii arbacadii toos u bilaabmay khamiistii iyo jimcihiiba soconayay maalin iyo habeenna soconayay subax duhur gelinka dambe habeen saqdhaxe intaba soconayay ayaan caawa gabagabadiisii joognaa ajendaha shirku wuxuu ahaa heshiiskii 17 Sebtembar 2020 hadallo iyo wax ka soo noqday shirka 17 Sebtembar ee lagu go'aamiyay doorashada 2021 madaxdii codsatay in shir dambe la isugu yimaado iyo talada go'aankii madaxweynaha in shir la qabto ayuu ka dhashay shirkan saddex ajende oo laga soo dheegay 17 Sebtembar ayaa u ahaa lafdhabar shirkan samarkeen wuxuu ahaa ka koowaad arrinta gudiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mid ah dawlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday heshiiskii 17 Sebtembar waxa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda daadiisa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda laakiin kuma jirin shaqaale rayid iyadoo la xeerinayo isu soo dhawaanshaha ummadda Soomaaliyeed lana rabo in doorashadu qabsoomida doorashada la dardar geliyo madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta gudiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay oran karaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaabilsan gudiyada xubintan waxaanu ku eedeynaynaa waxa ama waxaana laga bedelo ama waxaasaanu aaminsanahay taasoo la isla qaatay xafiiska ra'iisul wasaaruhu arrinta inuu maamulo ciddii xubin commission wax ka soo noqdaan wax la turxaan saaro oo wax laga qabto iyadoo aan gar loogu lahayn oo aan heshiiskii hore ku jirin haddana xukuumaddu waxay aqbashay qofkii commissioner ee laga keeno cabasho ama dhexdhexaadnimadiisa laga keeno su'aal inuu ciidan yahay iyo inuu shaqaale yahay in xafiiska ra'iisul wasaaraha ay keenaan qodobka labaad wuxuu ahaa ee aad looga dooday arrinta gobolka Gadow sida la wada socotaan sidii ay doorashadii Jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol state-ka Jubbaland khilaafkiisu marna ma damin turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ilaa hadda waa tasaamaysay goboladii maamul goboleedka Jubbaland arrinta Gadow waxay qayb ka ahayd khilaafaadka shacabkii ku noolaa Jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas waxa la soo jeediyay xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashana ay ku taliyeen koow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo arrinta maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxa la soo jeediyay in doorashada ay maamulaan degmada Garbahaar ay tagaan ciidamada booliska oo ka socda nabad ilaalinta AMISOM taana way diideen maamulka Jubbaland waxa la soo jeediyay guddi xaqiiqo raadina in la diro oo loo diro gobolka Gadow iyo Garbahaar guddidaas oo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-kan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka oo dhan ay tagaan arrintaana way diideen hogaankii Jubbaland intaas markii la isla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay waxa aad loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata qooda shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhamaanin
kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogola arrintaa runtii dawladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka Gedo doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteediyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka Jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la sameyn iyadoo hadda dagaal ka dhaceen 10 maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dawladdu u aragtay inay keenayso iska hormaad cusub oo isku dirta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan suurtagal ahayn sida uu uga mid yahay gobolka Gedo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumaddu u danaynaysa oo uu uga mid yahay wixii duruufa iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtay lama rabo wax hadhowta mushkilad keenaya intaas oo wax in gudi la diro in ciidamada dhexdhexaad la diro iyo in dib u heshiisiin la sameeyo saddexdaas soo jineedba way shaqayn waayeen arrinta Soomaaliland ayaa iyaduna ka mid ahayd arrimihii laga wada hadlay shirka Samareeb sida alla wada socotaan horena u jirtay kuraasta Somaliland ee gobolada waqooyi waxa lagu qabtaa magaalada Muqdisho waxaana maamula dawladda federaalka oo ah xukuumadda dhexe Soomaaliya maadaama aanay jirin state ama maamul matala oo la doortay dadkuna ay yihiin deegaamo iyo qabaa'il reer waliba kuraastooda gaar u leeyahay cidda kaliya u dhaxeen ay tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa soo baxday gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi oo ah oday muxtarima in la yiri hal la siiyo gudiyada doorashooyinka talaha laga siiyo xubnana hal la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17 Sebtembar iyadoo aanu qof kamida xildhibaanada 330 xildhibaan ee dalku xaq u lahayn in isaga gaar wax loo siiyo iyadoo aanay qancinaynin qabaa'ilkii kale iyo dadkii kale ee kuraasta lahaa in kuraastooda qof maamulo ee ay dhammaantood daba taagan yihiin dawladda oo ay tahay central body-ga ama xudunta maamulka Soomaaliyeed iyada oo aan qofka bini'aadamka ahi lahayn imkaaniyaadkii guddi doorasho uu ku maamuli lahaa sababta guddi doorasho waxay u baahan yihiin miisaaniyad waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baadho ma dambiila ma qof dambilaba ma qof u qalmaba ma qof shuruudaha buuxinayaba intaana qof aan fulinahayn oo aan xukuumad ahayn oo miisaaniyad lahayn aanu qaban karin xukuumaddu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddidii dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedyada in Cabdi Xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddida doorashooyinka ee kamida guddiga doorashada Soomaaliland iyadoo dawladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyay haddana wuu diiday senator Cabdi Xaashi inuu qaato 4 xubnood oo ah 40% xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd khalad iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baaba diiday intaas markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan ku wargeliyo shirkii oo dawladdu tanaasul walba ka samaysay hadday Gada tahay hadday Soomaaliland tahay iyo hadday gudiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka mid yihiin ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadan aan isla meel dhigno qodobada aan idin sheegay saddexda qodob la isla meel dhigno marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dawladdu furtay xafiiska barnaamijkuna uu diyaar u yahay inuu ka qabto labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin sidaa darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ku taliyay maadaama la sugayo fadhigii wada jirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bishana 6 tahay in shir dambe la isugu soo noqdo maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah ee sovereignka ah ee madax bannaanida dalka ah in la isugu soo noqdo shir dambe
oo muddadiisa iyo madashiisa ee la soo sheegi doono si wada hadalladu ay halka uga sii socdaan laakiin waxa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal sidoo noqday runtii dawladdu waxay muujisay dabac waxay muujisay tanaasul waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo waxa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sadbursiyo marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay isiraahda ka badi oo ka kordhi oo sadbursiyo ku raadi taasina ma shaqayso ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dawladihii xubnaha ka ahaa dawladda federaalka member stateski ka soo qayb galay madaxdoodii runtiina aad u dadaalay caawo kaliya waxaan garanayaa madaxweynayaal ilaa 6dii maqribnimo ilaa 12kii habeenimo fadhiyay kursi aan mar qura ka kicin ee sugayay in natiijadu ay ku dhamaato guul iyo barwaaqo waan u mahad celinayaa madaxweynaha Hirshabeelle Ali Guudlaawe waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii martigeliyay kulankan ee aan habeen iyo maalin nasan أحمد عبد كارية قرقر وحنو مهد علينا يا عمر فنش وحنو مهد علينا يا قدامي قبل كبنادر وحنو مهد علينا يا مدحوينة السعيداني وحنو مهد علينا يا مدحوينة أحمد محمد سلام وحنو مهد علينا يا مدحوينها عن الصن عن فريسان الساعد والبتاجنا عبد العزيز لفت قرن مدحوينها كونفور قلبي حكلو روينا نو مهد علينا غير قلمدوك يغير سمرين وحان إلاوي كرين ciidamada kala duwan ee ku sugan galmudug haday yihiin ciidamada militariga gorgor haday yihiin booliiska iyo harimacad haday yihiin security iyo sirdoonka dhammaan ciidamadu waxay guteen waajibaad waana arkayseen cadow isku dayeen inuu qalqalgeliyo shirka sidii talaabooyinkii ay ka qaateen iyo guulihii ay ka soo hooyeen iyagana waa nugu hadalaya ugu dambeyn bahada saxaafadda waxaan leeyahay saacado badan baa taagnaydeen 5 maalmood iyo 5 habeen saxaafaddu mar kaliya kama ay qoob qaadin madasha shirka iyagoo rabay dadweynahooda inay la wadaagaan go'aamada iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin in Allah la yudiicu ajra al-muhsiniin ilaahay ma dayacayo wanaaga dalkiina iyo samirka aw lahaydeen ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ee naga dhur sugayay iyagana waxaan leeyahay bishaaraysta shirarku way sii socon doonaan dalkuna iyo horumarkiisuna way sii socon doontaa waana guuleysan doonaa waa mahadsantiin